kiisku waa sii xumaaday arrintii hawaday gashay meeshii waxa la yiri diilalbaa ka socday behind the camera markaanu lahayn yaa ku jira qofkaasi waayo diil baa ku jira baa leeyahay meesha lacag baasaa loo ordiyay lacag ay aabaha was waji ma leh lacagtu soo waji ma leh bini aadan xataa naf waa u goysaa maxaa dhacay mid baasta ku dilay qofe ya xaaladii way xumaatay Kenya waxa laga soo sheegayaa in qolooyinkii DCI-du ay gabadhi gacanta ku dhigtay baaritaan xoogana lagu wado gabadhu marba guriga aadaysayna waxa la yiri maadaama dawladdu ku guda jirtay oo ay rabtay gabadha inay soo qabato xaaladeedu saasay u lahayd amni daraan dareemaya dawladda ka carreys assalaamu calaykum warkan cusub dhabdhaha anfac waa lala hadlay kadib markaan muuqaalka soo dhigay booliista xaafadda Isliya iga codsadeen inaan u baahiyo anfac waa la wacay telefoonku way qabatay waxayna ku tiri aniga uma baahni booliis keeskaygu wax booliisa uma baahno arintana waxay dhacday 2023 wax hadda dhacay ma aha sidaa darteeda waxay tiri uma baahni booliis haddaba marka fariintan kale la isoo faray waxay tahay aan idin la wadaagayo maadaama aan dad badan ay ugu xiran yihiin waxay yiraahdeen boolisku waxay u aqoonsadeen anfac arinteeda been abuur anfac arinteedu laamaha amnigu waxay u aqoonsadeen been abuur sidaa darteeda qof allaala qofkii ma aragtay qabadood ama dacwo ama arintaasi wax xog haay ama asaga yacnaha rabo in ma aragtay uu keeskaasi furo waa la soo dhaweynayaa ha yimaado police stationka Pumwani ha yimaado kal dacwadeed baa laga qorayaa statement ayaa laga qorayaa إما أنفع ساعة لقى باللعبو بوليسكو وحي كقاضايان تلعبو شرعي وافقسن محايا وحي كعياريسا درين كدتك كعياريسا سماعات دتك سومالي بكعياريسا مدى مسلمين تا مدى ديغان نبت جليدي بيقلق الجلنيسا بين أبور بيسمينيسا الرماسنا وحي عيب كتاهي أمنيقه سيدا سترت هذا أنفع بوليسكو وحي كقاضايان سيئي شغل تلعبو شرعي وافقسن عدي أرندا دوت لقبتان هاتي مادو السلام عليكم وابرك بوليس horeyna uma dhicin hadda ma dhicin حتى أبا هي أبا كويس هذا الكلام ده كفانسية لوجا حرين تيك توكا هي وما ركت هي نادر الرسوق غراء وكا سو ما ركتان ومقال كان جوجل كان لجليه فيلم كان وحوين فيديو جوجل كان لجليه إفرم بريكوف كستانو جلين كرا ثانك يو قبل شرفتي كرا ما له مقال جانوري أمالي سجال كجانوري لبعض يكون يا سجال يا طبعا كجانوري laba iyo 10 iyo 4 mirir ayaa waxa la galiyay isla baraha bulshada meesha loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammadey Google-ku wuxuu soo saaraa waqtiga saxda ah ee la galiyay muuqaalka marka waad u jeedaan muuqaalkii 2023 ka ahaa 2029 ayuu si toos ah ugu biyo shubtay waka gabadha muuqaalkeedu 2019 ayuu baraha bulshada galay عادي جوجل أي صوص ناحد وردات أربعة ما تكلم مركو حرب علينا نقبحه قلت معقول ما تنويل وأنا حلي قل دوبي فيديوجا كوس عولا معقول ما مركا يسافر قلبي وقتك على دوبي قف دم باللوجيستي كوفس اللوجيستي سيدو كو كان إنه دولة كعرّو ورانا ورنت كما قبضوا إدنا وجه كبلي يا سجل وحي تري والله يصور رياضنا وحي يصور تي سعودي gaari baa gabadhaydu lagu soo weeraray gabadha yartaa aan dambiga lahayn ee dambiga wali loo qorin sababta loo weerarayaa maxay tahay soo darama sidee ilmo yar loo weeraraa ma ilmaha dambiga geystay ma ilmaha wax kufsaday ma gabadha wax kufsatay ma dambigi baa dambi kale ku saxaysaa sagal la weynay dacwootaa soo iyadoo dib looba geyn bahashu maxkamadaha isla wada gasho maxkamadda soo cadaynaysa wax walba oo sharciga wax walba soo cadaynaya cidda ka dambeysay fiidiyoogu inuu feeg yahay in codadka la saaray in gabadha tan ay isaga anfac ay been sheegayso xalay qolka miicabdi waxaan ka sheegay in sheekada tani dhiil ahayd markiiba warkii isoo dhacay qolka miicabdi baan ka sheegay waxaan ku yiri miicabdi war waxa soo gaaray dad badan baa iga soo horjeestay war waxa soo gaaray in dhiilka kan sagal markii hore ay la gashay oo ay tiri baasantiga qolka ku dhacan ku siinaya kadibna ay gabadha tiri daahir cali soo aaday
sagalla halka ay ka xanaaqday xaqiiqdii oo ogeyd ay marba in sheegayso waa laga diiday xalay فيديو عدكيga waa duuban yahay hadaad meelaha ku soo aragtaa waa arki kartaa habal la iga diido ma xume waan dhex galay maanta ilaa maanta u dhex jiray warka ugu dambeeyay hadda soo dhacay wuxuu sheegayay qolada CBI inay gabadhii soo afjarayso warkaasi waa la soo afjaraya qof bini aadana ma bixi karaa liid wala sahal wala Saudi wala qof kale baaritaan baa saas loogu daba jiraa maadaama sagal ku eedaysay Saudi inay gabadheeda soo weerartay saqiir maxaa dadka u geeyay saqiirku gabadha yarta ah ma waxbay kufsata ma kufsi bay geystay ma kufsi wax ka ogay ilmaha gabadha yarka ah saqiirka ah dulmiga maxaa loo geysanayaa war gabadha yarta haddaanu mid la yaabanaynay gabadha yarta maxaa gacmaha looga jijibiyay oo gawaarida loogu soo kaxaysta hadda wax iska celineysaan mad hooyada iska celisaan oo aabaheeda jooga ku dhiirataan ma ilmaha ka qaraabanaysiin waxba fahmi maayo anigu sheekadii waxay noqotay ha ila waalato oo ha ila qayliso ya alla maxay been ooy ilin iga timid ilin asba iga timid markaas aniga dhan xubooday saarabadaantaydii waan la labooday gaajo iyo waxaan isku darsaday oohin iyo waxaan isku daray muraad dilaac iyo hiilaka iyo orod iyo fagatax iyo hurdo la'aan bal oo dhan isku darsaday qalbiga way xanuun gabar saas loo kala qabanayo oo dusha laga degay la ilaaha illa allah ya rabadaantii laga baxayay idin wanaagsan iminka xantii loo kaba gashanaya si wacan baa iminka la isku feedaya hadaba waa la isku dhalriganaya xaqiiqday tagaysaa baan ku yiri gabadhaasi fiidiyooga arintaasi wixii ka dambeeyay kula taliyay inay arintaas samayso sumcadeeda iyo sharafteeda dhulka ku dhufato waa la keenaya inkastoona cidna dadku ka wajiga kala lahayn oo kala jeclaynba dadka u jeedo ma kala jecla laakiin hortiin hore Allah adduunka maantay qof dambe oo la aaminayo ma jiri doonto don't trust anyone haddii lagu dhaho ka waran wixii baroor naga dhacday wixii oohin naga dhacday wixii rafaad naga dhacay haddii lagu dhaho ka waran fiidiyooga Ethiopian buu ahaa codka gabadha waaba soo saartayba hoogado baayay walay kufsada don't trust anyone waxaa la dhahay runtaada hore beentaada hore runtaada dambeba u daranta hadda waxaa la keeni doonaa kuwa caadi loo kufsaday yaa u jawaabi doona yaa dhahaya lacag baa lagu aruurinayaa hadduuba noqdayba haddana waxaa kaaga daranba adduunka sumca xumada adduunka noo gashay qofka kaasoo horbaxa wuxuu ku leeyahay ma aragtay gabadha Soomaalidu dhibaateeyeen maxaa weeye 5 man baa naakufsaday qof kaste la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah alayhi wasallam sumcada xumada adduunka gashay baa kaaga daran ka sheekee sumcada xumada maanta adduunka taala hadda nimanka Soomaalidu adduunka waxa ka yihiin criminal bay ka yihiin ka sheekee wallahi wa billahi oo tallahi awal baayago fare ku taagnaa hadda waxa la leeyahay bas ma nimankii inta gabadha guriga ku xirtay 4 uu siga degay bal sumcad xumada ka waran lacag darteed ina lacag la helo oo maalin kasta gabdhaha la cimaamadaay ma gabadha caadi cimaamad caadi inta loo soo dhajiyo ayadoo isa sumcad dilin waxba balaayo isgaarsiin gabdhaha maalin walba inta cimaamada loo soo dhisay malaayiin lagu dhuftaa ma caadi saa si sharaf leh saa ku doonto inta wiilasha Soomaaliya dhibaateyn lahayd inta sumcad xumo u raadin lahayd inta qof bil aadana ku dhihi lahaa beenta bal arag Ilaahay baa kugu dhaarshay wallahi wa billahi oo tallahi wixii oo hin naga dhacaysay Ilaahay samaystay baa ku dhaartay wixii oo hin naga dhacaysay waa been Ilaahu uqsima billahi waa been gabadhuna waa fiidiyooguna waa Ethiopian waa naag Ethiopian oo niman Ethiopian ay kufsanayaan maxaa la dhahaa su'aal isku soo dhaweeye waa Ethiopian gabadha la kufsanayo waa Ethiopian nimanka kufsanayana waa Ethiopian waxaa la bartay in emotionally-gaaga lagu ciyaaro dadka emotionally lagu ciyaaro waa la kufsan because abo idinka victim naga dhigteen nimanka Soomaali ee ka naagaha Soomaalida victim ka dhigay
ayaa ku dhahay you are nothing waxba ma tihid gabar kasta oo Soomaali ah meel kasta ay joogto waxay aaminsan tahay inay victim inay tahay bay aaminsan tahay fashakeeya idinku markaa gabdhihii victim ka dhigteen oo gabdhihii waxaa jirin ka sheegteen oo waxaan jirin ka dhigteen waa kaasa ka xaaxaabiya mid kasta victim ha ka soo dhigto waa lay kufsaday lacagta loo aruuriyo adduunkana sumcad xumaha ku gasho bal ka sheekee adduunkana sumcad xumaha ku gasho qofna ha aaminin maanta adduunka maanta jira midalka waxa kaaga daranba annaga dhan sidee fiidiyowga u fahmi weyn in Ethiopian dadkan aysan Soomaali ahayn balina dhoodhoohanahay hal qof oo fahmi kuma jiro كل وذا قيرة جبان هوغاية قبادي والا كفصادة قف والبوحو أماليسان وايي قبادان انتا سوقنين اي حوغيسو بقفل بعقلك سكنا دعي ويسي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا عليها ربا تعالى سوا حاكو دهدان رباته وحاكو دهدان سوري أبو والله بالله تالله سوري أني دلمي قمتش علي قف دلمينا الله سبحانه وتعالى باكتا إيسيني يوم الأيام بيلاك جاسينيا صدري ومدي عيسى هذا الله صدري هذا ما أنت وعيدة ما حنكون عيدنا ما أنت وعيدة أو أترك النجي أنا فيديو داوننا ما أنت بيش نقول رمات قفل الحوجي أنا داوننا أي بيش رمضان نقول رمات ورني كان وافدرو عوان كان هلا جحيرو ني كان وافدرو فدرا هدو يصير فدرو وظاهر فدرو نين كان iyo naagaha daaqada u saaran ee cabtooyda ah ee lacagta dilaalka aqaatay lagu shubto naagta lugaha go'an ee jilbaha go'an ee la yiraahdo soy labadaas ay ka go'an tahay labada bay ka go'an tahay wariyada adduunka yaa waxaad sitan baa leeyahay adduunka yaa waxaad sitan faaliga qof curyaana adduunka yaa waxaad sitan qof curyaana waxaad sitan kuwin soy labadaas ay ka go'an tahay ma kacdaba qolku unbay ku baakiman tahay aabadaahiro fiidiyowgan ku soo diray eeg aabbo daahir sida gabadha loo galay hay'adda aabbo daahir ma isaga ku dhalay Allah iska ka dhalay aw aabbo daahirow umbeeleeyeen daaqadii saaran yihiin waxa daaqada u saaran oo dhan waa tiim aabbo daahir isagana ku shaqaysta waa mukhaliskii weynaa weeye garac dhala weeye ninkan war waxaan ummadda laga qabtaniyo war hawiyow ninkan goorma dilaysan hawiyow idin ceebe oo ninkan hawiyanimo ma yaqaano oo haddii xataa maanta qabiil lagu difaaci lahaa daahir calasow habar gidirna waa ceebeeye abgaalna waa ceebeeye hawiyow kan goormaad iga soo aftaraysan haye maxaa idin dhahani shalay markaa idin lahaa gabadhan hadalkeeda waa isla dhaafa marna Algeria lagu kufsadee leedahay anfac marna Nairobi yaa xalwadeyda lagu cunaya leedahay gabadhan beenay sheegay run waxa u dhow gabadhan orange card u eg qanjeeqaan sagal markaa idin lahaa waa diideen يا كومنتي waxay ugu soo qorteen qurux ku dhigla maxaa kuugu dhacay qurux ku dhigla gabadha rikaata lagu haysta gabadha horta say wallahi ugu daran 1 milyan ingiriisi ay soo qoreen she break down yani gabadha wada saari ka wada she break down is she Somali man destroy us no hopeless waxa way say wallahi cadaan ma gaarin Soomaalina waa ka tageen dhaxdana ku dhumeen gabadha la dhibaatay markii la dhaha hal jaraa'id oo ingiriisi ku soo qorayaan kuwaasaba ugu darabo iyo gabdhahan maalin walba victimka iska dhigayo oo garoobada war haddii 1 milyan oo dollar laga soo bixiyay loo kala kiciyo oo madax la saarto hal qaladoo nin Soomaali ka gala day arkaan bas way oo keel dheer inta ku soo gasho ragga Soomaaliyeed aad bayno abiyuusanaad wara adduunka waa la isgubooya adduunka ka waa la iska siidooya anaga wax leen furnaabo laakiin waxa la yaabanahay walaalayaal gabadhii waa lee dabsaarayo waa lee duqeey dekada ceel macaana laga xasuuqay tiri iyadoo oynays hadday beenley noqotay walaalayaal yaa la aamina hadda kadib qof oynaya haddaa arko social media waa lee dabsaare dhahay waxaa leeyahay inta dhiman Allah ku dhammaystiro ebermiya ubihi abeerneni la shanayna hadda wixii ebermiya ma iskugu soo dhamaatay yaa dumarland inta caloosha la huriyay yaa intay rag la ficiltamayeen 4 milyan oo koonisa laga cunay ilintiina waa ka dhamaatay dollarna looma dhaafin ilinna waa laga dhameeyey marka ilaahay idin boogna ilaahay
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ma intii qaylo iyo aflagaado iyo dembi dhacayba maanta waxaa laga shakisan yahay oo laleeyahay gebi ahaanba gabadhan wax ku dhacay ma jirto. gabadhiibaa waxaa la sheegayaa gebi ahaanba meel ay jaaniyo cidhib dhigtay nalayahay 4 milyan oo koynisa markii lagu dhuftay. weligay kuma degdego kamana soo hadlo arrimaha noocan oo kale ah. haddaad xataa fiideo noocan oo kale ahoo dembi noocan oo kale ahoo la kala garan layaho gebigiisuba gidhiishgidhiisha oo dembi weyna anoo ka hadlaya aad meel ku aragtay igu soo mishin galeen. waan ka taxadaraa waxyaabaha noocan oo kale ah waayo waxyaabo fara badan oo aan ogahay baa jirto. dunidii munaafaqadii baa kusoo badatay. dad fara badan sharaftooda iyo cirdigooda iyo wanaagooda waxay ka doorbidaan lacag yar inay helaan. dad fara badan ma fiiriyaan sharaf dhaca ay u geysanayaan dadka kale ee dembiyada qaarkood ay ku eedeynayaan. gabadhii gebi ahaanba waxaa la leeyahay Kenya oo markii ugu dambeysay ay joogtay markii kiiskii ilan TikTok cadaalad ma taalo. TikTok maxkamad ma aha. TikTok dowlad maahe. dowladii Kenya iyo dowladii Soomaaliya kiiskii markuu gacmahooda galay ninkii Roberto ahaa ee hadda la leeyahay waa dulmane. isaga laftigiisa hadda kuma degdegayaan oo ma dhahayo waa dulmane 100% waan huba. ninkii Roberto ahaana markii uu yiri lawyer baan qabsanaya oo Kenya imaanaya. dowladii Kenyana ay tiri dalkanaga ay waxaan sharaf dhac ku yahay. kiiskiina dunida oo dhan uu galay oo dad Chinese raadiya oo aabad moodaysa Soomaalinimada inayba jecel yihiin oo qaybta xun inay ka faafiyaan ay ajaanib iyo dunidii ay u gudbiyeen. gabadhii waxaa la sheegayaa Uganda inay u baxsatay. dad kalena waxa ay leeyihiin gebi ahaanba gabadhu wayba soo tahriibtay oo tahriib bay soo gashay. dad baa waxa ay lahaayeen markeedii horeba gabadhani Chinese waxay raadinaysay lacag ay ku hesho si ay u tahriibto. ilaa iyo hadda ma lihin gabadhaas Soomaaliyeed qof bay dulminaysaa iyo iyada lama dulminayo ma lihin. laakiin xoga la soo helay waxaaba la leeyahay gebi ahaanba fiidiyoogu waa naag orama aha 2019 baana la duubay. marka si la yaraha fiiriyo gabadhan waa gabadh aktarada. anigu waabaan TikTok iska follow gareyn jirnay aan cid taqaanay ma ayna jirin. gabadhan waa gabadh aktarada waa gabadh filimaanta soo jili jirtay. waxyaabo fara badan baa laga filan karayaa qofku marka uu dadka filimaanta soo jila uu yahay dadka waa uu ka horeeya. waxyaabo fara badan oo uu og yahay baa jirta. kaleeto codad fara badan oo uu jili karaya baa jira. TikTok baad sheegay xataa Snapchat-kayga wallahi ana qoraal ku saabsan arrintan aan ku soo qoran. sababtaan ugu soo qori waayay maxay tahay gabadh Soomaaliyeed baba la lahaa waa la dulmiyay. waxaan ogahay waxyaabaha qaarkood sida loo soo gudbinaya inayna 100% mar kastaba ay ahayn. mararka qaarkood ha laakiin mar kastaba waxyaabaha qaarkood sida loo soo gudbinaya mar walba ma aha. idinkuna ka taxadara. caadifad iyo emotion intuu idin qaado dambiyo waaweyn ha gelina. qof baa la dilay hadii la idinku yiraahdo waxaad fiirisaan qof kale leeyahay wax buu dilay. xaqiiqada adoon ogaanina meeshan caadifad iyo emotion ha la soo fadhiisanin.